Asalaamu calaykum muuqaalkeena maanta waxaan ka diyaarin doonaa Somalilan marka indhaha xamaasadda iyo miisaanka caadifada la saaro faanin iyo buunbuunin iyo barakooyin meelay ka yimaadeen aan la garanayn ayaa ku gadaaman marka miisaanka garaadka iyo caqliga la saarana dhinac walba waa dal faashilka oo ka fashilma waa dalka baydhay mabaadidii seeska iyo salka u ahaa ee loo aasaasay waana dalsi jiritaankiisa ay farweyni ku godan tahay 10 sano ee soo socda waxaynu dhaahinaynaa daliilaha dalkan sii waaritaankiisa caalamad su-aasha gelinaya mana doonayo in dhiiggii dalka loo huray iyo dhimashadii adeeradeen iyo awyaasheen ay tacab khasaar noqdaan laakiin intay wax ka qabashada leeyihiin in wax laga qabto waana qof iyo garashadii haddii aan ku horeyno miisaanka caadifada qof kastoo afka Somalilan ku hadlaya madax iyo miijaba ereyga ugu horeeya ee muqadaska ah ee uu kula soo hor istaagayo waxa weeye in calanka loo soo halgamay iyo inaynu nabad haysano masalada calanka markaan isdul taagno war adduunkan korkiisa kama babanayo calan aan loo soo halgamin oo aanay dad u dhiman dhiigna aan loo shubin haddii calankeenu waxa qudha ee uu qiimaha ku leeyahay ay tahay in loo soo halgamay haylaawin calanka buluuga ah 1977 inaynu u galay halgan aynu wax walba u horay oo in badan oo kamid ah saraakiisha SNM ee Soomaaliya la dagaalamay ay safka hore kaga jireen ciidankii Soomaaliya ay calanka buluuga lahaayeen calankayga nuurow haddii aanan soo noqon allahayow ku nabadgeli haddii waxaan calanka liidimaha leh aynu ku jecelahay ay tahay waa loo soo halgamay adeer shalayba ka innaga ayaa u soo halganay ee ciidankii Soomaaliyeed cirka soo dhacmay ahayn ee hebel iyo hebel la garanayo ayay ahaayeen calankuna waxa uu qiimo ku yeeshaa halka ay dadkiisu geeyaan iyo horumarka ay gaarsiiyaan ee qiimo kuma yeesho in loo halgamay innagana ka Somalilan ahaan waxa xaqiiqaha inaynan calankeena sinaba kor ugu qaadin waxa qudha ee aynu ku maamusnaana uu yahay in loo soo halgamay inuu nagu dhex dulmo yahayna waanu arkaa masalada nabadda haddaanu imaado war Soomaaliya nabad ayay ahayd dadkuna nabad ayay ku noolaayeen markii aynu hubka qaadanay 82 ee mucaaradada ku dhawaaqnay ee dagaalku bilaamay ayay nabaddu meesha ka baxday maantana nabadda aynu haysano waa marka koobaade waa nabad ciddii dhalisay ee keentay ee u tacabtay ilaahay kasakow aanay ku xusnayn ee qowlaysato xilal iyo maamusku doon ahi ay sheegtaan raggii nabaddan naf iyo maalba u horeyna aan badanaa la aqoonba ee nabad ayaan haysanaa un lagaga baxo marka labaadna sunnaha nolosha iyo qaanuunkan ku shaqeeyo ayaanba ogolaynba in si wax gaara ku waaraan oo sii jirtaasi ma jirto mahmaha Soomaaliyeed ayaa ahayd wax allaaliyo wax qorshaa kama lihin sidii aynu nabadda uga faa'iideysan lahayn haddii ay meesha ka baxdana sidii aynu u soo ceshan lahayn waxa uu nabadda seeskeedu ku taagnaa qabiilka oo dulmi badan laga galay oo nimcada ilaahay ina siiyey aynu ugu mahadnaqi weynay oo in badan la yisay maanta saameyntiisii meesha way ka baxday aabana ilmihiisa saameyn kuma laha dowlad adag oo kaalintii qabiilka iyo caaqilka sultaanka inoo buuxisana ma hayno haddii ay mar labaad nabaddu burburtana oday la maqlayo oo hadal laga dhageysanaya ma jiro ee dhuljiif iyo shufto uu nin walba intiisa isku faleysiiyo ayaa loo bambaxayaa dhanka kalena nabaddu waa shamac baxaya inta uu iftiinka badan leeyahay haddii aanad waxaad qabsanayso qabsan maalinka uu shamacaasi damo intaad shamac kale mugdiga ka dhex baadhbaadhayso ayay xeeryo fandhaal kala dhacayaan sidaa awgeed nabad waynu haysanaa laakiin waxaynu ku qabsanay ma jirto dalkeennan maalinba maalinka ka dambeeya dadkiisu ay dhanka dabaqadaha ee fuqarada iyo dadka ladan si kala siibanayaan iyaga ayaa nabadda la sheegayo gacmahooda ku burburinaya labadii wax ee sida caadifadaysan aynugu faanaynaa waa kuwaas Somalilan waxay Soomaaliya uga goday in aanay Soomaaliya ahayn dal la wada leeyahay oo dal dhan ka raran u ahaa maanta Somalilan hiigsigeeda ugu weyn ee siyaasi iyo shacab lagu hadaaqayo ee xitaa aqoonsiga la sheegay ka mudnaaday waa Somalilan la wada leeyahay taasoo ku tusinaysa in aan Somalilan la wada lahayn idlayn hadba wixii maqan ayaa la raadiyay marka xigta sida ay mujaahidiintu sheegeen Soomaaliya koonfur ayay ka dhismaysay waqooyina dowlad ma aqoon maantana Somalilan galbeed ayay ka dhisantaa barina saamigeygii ayaa maqan taasoo ku tusinaysa in wadadii shalay la yiri waa laga dagaalamay aynu ku soconno maalintii dhaweyd ee arrinta laascaanood aad ka hadlaysay adiga iyo raggii madaxda ahaa ku berber taagna sawirkooda marka la eego intaasaa siyaasadeenna fashalaad ugu filan power sharing waa political
madaxweyne ku xiran yahay baarlamaan buu ku xiran xisbiyo ku xiran yahay saddexdaba family waa maamula dalkoo dhan one family waa maamula projectiska dalka soo baxay one family waxaan ka jeedaa SNM baa maamusha ama qabiil ku tilmaamo wax kale ku tilmaamo waxaanu ku leenahay qaranka saami qaybsigiisu isuma dheelitira isu dheelitir oo si degdega isugu dheelitir oo reer sool saamigoodii ma hayaane annagaa u odhanayna reer sool saamigoodii si oo markaanu si cad ugu tilmaano reer sool waxay xaq u leeyihiin saamiga beeshaadu heshay mid leeg saamiga beelaha waaweyn ee kale isaaqeleen mid lamid ah ayay beesha reer sool xaq u leedahay waxaanu ku leenahay saamigii reer sool ku noqo oo waxba ka dhimane inaynu ka hadalno waxyaabaha inaga qaldan ee burburka inoo horseedi kara milal guudkii lama dhayo ee aynu xaqiiqada taabano boogtana aynu dheecaanka ka sii daynaa maaha in horumarka Somaliland laga xun yahay ama midnimada Soomaaliya la doonayo berigii la oran jiray dadkan Somaliland joogta ka caban jireen power sharing waxa la oran jiray tiradina ay siiso inta iska tihiin waa qaylinaysa and at the end of the day waxa keentay Somali Republic burburto haddaan waxa ka qaban I'm 100% sure in Somaliland population it's not sustainable qaabkaas waxaan sustainable ku ahayn baan ku sheegay Somaliland SN markay dagaalantay dawladnimada ku dhawaaqday dadkan kale ka hadlaysan deemay doonaynin go'aan istaag SN bay ku leeyihiin hadday dibadda SN tiraahdo wixii oo dhan baan qaatay anaa madaxweynaha anaa maxkamada anaa baarlamaan anaa ciidan anaa shaqaale anaa everything qofku muxuu ku kula joogay there's no reason ila meesha maaha ilaahay kuma amrino aayad quraan oo akhriyaysa ma aragtay Somaliland ka mid qoma jirto waa inuu inclusivity baa dimuqraadiyadda ka mid tahay inclusivity iyo shalay Soomaaliya waxa lagula dagaalamay xorriyadii dadka oo qeyday oo in dadku si xor u dhaqmaan aanay u ogolaan maantana xorriyadda Somaliland waa mid gacanta shanaad la iska toogto oo haddii xawaare iyo xorriyad laga dareemo qof shacabka ka mid ah inuu adeegsanayo meesha uu ka shaqeeyo ayaa looga soo wareegayaa dhibaatooyinkan aan ka hadlayana waa la wada ogyahay ee qof walba dantiisa ayaa ka xidhan haddii uu xitaa isku dayo inuu meel comment iyo faalla ka bixiyo aan loo ogolayn inuu meelaha faragashado shaqadiisa waa ka dibadda sida ayuu aamusan yahay waa xorriyadii dawladii militariga ahayd ay dadka xorriyadda sida cad uga qaaday oo si dadban dawladda Somaliland uga qaaday in rumayso haddii aan cid u shaqayn lahaa barnaamijka maan diyaariyeen ee shaqadeeda ayaan xajisan lahaa waxa dadkoo dhan inay dhageysanayaan kama khati furayaan in booliisku aad siyaasi u yahay muxuu aad siyaasi u yahay maanta madaxweynuhu soo amro in wasaaradda halkan la xiro booliisku way xirayaan boqolkiiba baan ku qanacsan wayna dhacday wasiirka arrimaha gudaha hadduu soo amro way dhacday wayna dhici doontaa waxay 32 sano ee Somaliland jirtay weli la faganayaa oo la fadhataysanayaa oo marba nin lagu maslaxayaa dhulkii dawladii siyaad ka tagtay welina waa laga go'yoon laayahay waxay dawladaha Somaliland isu soo bedelayeen ay ku soo kordhiyaan ma jirto waxay kala sii tagaan mooyaane dhanka hiigsiga iyo horumarka adduunka Somaliland eberka ayay hoos ka sii xigtaa boqolkiiba 95 waxqabadyada wadanka ka qabso waa wax shacab isxilqaamay ay qabsadeen dawladaha Somaliland ka jirina waxay ka adag yihiin sida ay dadka uga qiiraysiin lahaayeen ay marba iskula soo keen hortaagi lahaayeen waa layna laayay iyada oo waa layna laayay aanay ahayn hadal rag ku hadlo farahana aynaan barro ku sidan ee inaguba aynu waxlaynaynay welibana dagaalka aynu inagu ku adkaanay iyo inay doorasho qabtaan waxa faan inoo ah inaynu doorasho qabanno waxyaabo kaliya wax soo saar iyaga warkooda daa khudaarta Itoobiya ayaa laynooga soo dhoofiyaa haddii banankeena wax soo saarka hodanka ku ah aynu beeran lahayn aynu Afrikada wada cirka weyn badideedaba qoodin lahayn wax soo saarka warshadaha ee miisaaniyadda dalkeena marba sii kobcaysa haddii sanadba hal warshad oo yar lagu dari lahaa ay dawladdu iska leedahay 3 milyan iyo waxaan dhaamin ayaa ku bixi lahaa 10kii sanaba 10 warshadood 10 dhaqaale iyo 10,000 oo shaqaale iyo 10 wax soo saar aynu leenahay aynu ku faanayno ayaa inoo soo bixi lahaa laakiin malaha ragga inoo taliya caqligaasba kuma jiro cilada Somaliland haysata iyo sababta aan ugu arko haddii aan ilaahay farash khayr qabo furin inay dumayso 10 sano ee soo socda aanay sii jireen waa in ragga inoo taliya ay hormuudka u yihiin madaxweyne Muuse Biixi oo adeerkaya iyo wasiir Maxamed Kaahin labaduna ay qadarin iga mudan yihiin ay weli ku jiraan dagaalkii ay galeen 82kii
aanay mustaqbal iyo horumarba ka fikirayn sida ka muuqata berigii sidan layna yidhi iyo berigii layna eegay in isla keen soo hortaagaan mooyaane. war 2 sano kadib waa inaan waxaa qabsanaa aan weligoodba laga arkayn lagana maqlayn. mucaaradada waa necbahay, sidoo kale guulwadaynta waa necbahay. garina tol iyo dal ma taqaano ee ilaahay ayay taqaanaa. war ilmaadeerayaal, Somalilan wadadii ay Soomaaliya ku burburtay ayay raacaysaa ee diida ama doona haddii caqliyada dagaalkii ay 40 sano ka hor gashay ku jirta la dhaafi waayana dhanka mustaqbalka iyo horumarkana indhaha loo jihayn waayo way burburaysaa Somalilan. waxaanay ku burburaysaa gacanta dhalinta ay ku faanayso oo maantaba ku caqliyeystay Somalilan oo niyadii marba marka ka dambaysa kasii xumaanayso dal haddii la doonayo in maqaamkiisa iyo sii jiritaankiisa in la ilaaliyo. inan yaroo iska qiiraysiinaysa iyo cunug yaroo bartay sida loo heeso calan aanu micnihiisaba garanayna calankayga uu iskaga qiiraysiinaya laguma ilaaliyo. beri baa layna eegay iyo waa laynala dagaalamna laguma ilaaliyo. cidda sidaa lagu leeyahay waaba dhalin dagaalka dabadii dhalatay oo badidoodu Somalilan ku garaadsadeen. beri baa layna laayayna sheeka xariiradii dhegdheer iyo waxyaabaha la midka aanay uga duwanayn. war dhalinyaradani waa dhalin horumar u soo jeeda oo isweydiinaya xaggaynu u soconnaa. waddan waxaa lagu ilaashadaa han iyo hiigsi loo dejiyo, gaadhistiisana loo halgamo. ilaahay wixii dhibaahay naga hayo sidiisana hayna waafajiyo, saadaasha xunna ha baajiyo, madaxdana haynoo hagaajiyo. laakiin waa tii la yidhi miidaama dhega ma leh haddii malag dhawaaqayo. Somalilan sidaan u arko malag ayaa u dhawaaqaya. wassalaamu calaykum.